السلام عليكم saaxiibayaal kusoo dhawaada koorsadeena AutoCAD Drafting Course Lecture 15 oo aan ku wada arkayno insha Allah creating groups sidee objectives kala duwan ama ashyaa kala duwan aan group uga dhigi karnaa anagoo isticmaalayno softwarekeena AutoCAD. Meeshaan waxaa noo yaala gawaari kala duwan oo 2D ah. Top ayaa laga soo fiiriyay, meesha sare ayaa laga soo fiiriyay. Okay, waxaan sameynaynaa marka ku practice gareyn doonaa insha Allah. So marka groupka maantay aan rabno inaan barano halkan ayuu ku jiraa. oo waxa ujeedaa halkan waxaa ku qoran group waa marka aad ka dhigayso waa dooranaya marka ku dhufato kale wuxuu ku leeyahay select objectives. Okay, objectiveska aad groupka dhigeedo dooro halkan magac ka siinay description kana waa kaasa. Sidoo kale G waa u adeegsan kartaa. Okay, G wuxuu u yaqaanaa group. Okay, sidoo kale meeshan waxaa ku yaal group marka shay ka dhigto an group ku taal macnaha kala geey oo sidee ahaayeen ku soo celi ama explode ayaa la macnaa. Sidoo kale meeshan kale waxaa ku yaal group edit, groupkii aad samaysatay waxbaa ka saaraysaa waxbaa ku daraysaa magaciisa ka bedelaysaa iyo wixii la midka ah. labada meelna fiiri halkan maxaa ku qoran group selection. Group markii la dooranayo waxaa ku fahmay waa wada doormayaan. Okay, marka hal doorashadooda hal mar macna hadda sida mid ay u kala qaybsan yihiin laakiin markii group aan ka dhigo hal doorasho waa. So marka selection kaas haddii halkan hadda saan oo kale active ay u tahay on u tahay waa doorane laakiin haddaa ka dhaafto oo saas aad dhahdo ma ku doormayo wuxuu kala noqonaa saan hadda uu yahay kala noqonaa group ma ahaanayo. Waxaa la mid ah meeshan oo group bounding box marka group sameyn waa arki doonaa waxaa jiro xad uu leeyahay oo rectangle ah xadkaasna hadda inta aad ka qaado hadhow ma arkaysa xadkaas. Okay, meeshan waa group manager-ki waa meesha groupka laga maamulo hadda wax group ah oo noo samaysan haba yaraatee ma jirto. Si marka u sameyno waxaan sameynaynaa ama keyboardka geli oo G taabo ama meeshan ka soo dooro. Okay, marka dooran kadib wuxuu kale ashyaada aad groupka dhigeeda dooro afartaana rabaa ina groupka dhigo. Okay, kadib waxaa leeyahay enter ayaa leeyahay hadda sida ujeedaba waa group. Okay, waxa hadda ku fahansiina marka hadda aan baranayna hadda maxaa ujeedaa marka doorashada maxaa ujeedaa mid kamid hadda dul tago inuu selection uu sameynayo kan ka qaad marka. Okay, off dhatan marka off dha maxaa ujeedaa selection kii oo groupka ah ma jiro hadda marka la ku celiyana waa kaas. Okay, marka ku sii dhufto hadana click assisi maxaa ujeedaa boundary ama xuduud ayuu leeyahay. Okay, oo geeskan ilaa geeskan wuxuu dhan adiga xadkaas uu leeyahay boundary-giisa waa hay boundary-ga taa ka qaada ka war hay maxaa ujeedaa wax boundary ma laha hay hadda on dhahana boundary-ga uu leeyahay. Okay, meeshaas in la ila fahmaa rajeyna waxaan sameynaynaa marka groupkeena marka group kale haddana magacaabeena waxaan sameynaynaa markaan G ayaa leenahay group ayaa leenahay objectives kana dooranaynaa marka saas u dooran waxaan sameyn karnaa name magac ayaan u bixin karnaa. Okay, name-ka marka maxaa u bixinay one oo kale isaga bixi. Okay, one oo kale marka u bixiso enter description-ka hadda adiga ku taala daarto ku xiran marka muxuu ku lahay group 1 has been created. marka taga marka meeshan aan furo oo group manager-ka aan tago maxaa ku jiro group 1. Okay, so marka edit sameynaysa ka waran marka hadda kuwan waa group sax waxaa leedahay edit aa leedahay. Okay, objectives kala edit garanayo select group aa lagu dhahaa. Okay, waa doortay wuxuu ku leeyahay magac dooro ama. Okay, so marka maxaa sameyn kartaa add object ayaa ku dari kartaa remove object rename. So marka kuwan hadda inta waa ka bedeli kartaa wax macna mal hadda mid kamid ah saarad su'aal ahaan remove ayaan leeyahay midka aad saaraysid aad dooranay kanoo kala ka saarey. Okay, kanoo kala ka saartad mujida enter hadda dhahdo macnaheedu waxa saddexdan group ahna enter dhehna sabab ku tusaaba saddexdan group waa kana waa laga saaray. Okay, so marka meel ka fiican oo laga maamuli karo waa group manager-ka waa. Okay, group manager-ka tagay hadda maxaa noogu jiro hal group sax groupka marka group 1 soo ma. Okay, ii kaadi hal mar kan groupkan waxaan sameynaynaa edit aan leenahay magacan ka bedelinaa groupkan waxaan leenahay G1 ama waxaan leenahay hal mar G1 ayaa leenahay. Okay, enter ayaa leenahay hadda groupkaas waa noo samaysan yahay. Okay, group manager-ka tagaynaa G1 waa kana ha. Okay, so marka waxyaalo yar yar oo halkan laga maamulaa ku tusaa horta mid cusub waa abuuri kartaa waxaa dhigi kartaa highlight maxaa waa مثلا groupka faa'iidooyinka uu leeyahay waxay tahay ashyaa kala duwan inta gawaari badan oo darownaha haysta laga yaabaa مثلا macnaha adii wax kale inaad ku shaqeynaysa laga yaabaa ilaa saddex nooc hadda meeshan ii taal noocan bis aan rabaa inaan la ii dooro meeshii waa jam waa darowinka aad igu badan waxyaalo badana meesha igu sawiran isku qasan marka haddaa rabto group gooni in lagu waxeeyo magaca le u sheegay kadib waxaa leedahay highlight. Okay, hadda maxaa ujeedaa uu ii highlight gareeyay groupkan uu ii highlight gareeyay. Okay, continue de haye one hal ii highlight gareeyaa le. Okay, one hal ii highlight gareey. Okay, highlight dhahay saddexdan waa uu highlight gareey oo kan oo looga reebay waa fahansan tahay data remove da inta ku baranayna marka remove ayuu si fiican u faahfaahsan. Okay, hadda waxaan sameynaynaa G1 na kan oo groupkan ah waxaan sameynaynaa add shay cusub ku darinaa
waxaan ku darinaa marka kan oo qoladan aan ka reebay baabuurtan kuwa aan ka reebay ayaan ku daraa fiiriya group 1 ii dooran ila soco add ayaan leeyahay objectii lagu daraa ii sheego leeyahay kan ku dara leeyahay kadibna waxaan leeyahay enter okay hal mar iska xirna marka kan doorto maxaa u jeedaa hal mar asla fiirino okay afwan marka la ku laabano ma uusan qaadan group manager aan leeyahay G1 imaana okay kuwaas okay waxaa sameynaa marka hadda soo iima doorna add ayaan leeyahay mid gooni meel iska yaala tusaale ahaan midlan doorana enter ide kadib okay inaa ka ilowaan rajeynaa maxaa u jeedaa marka woo wada doorto okay kan groupka kugu xisaabiyo okay marka waxaan sameynaa isla asagiya groupka remove ka leeyahay yani sida option kaasna u barano okay G1 ii door G1 marka ii doorto kadib waxaa leeyahay remove remove waa kan remove marka tira waxa laga reebaa maxaa kan iga reebaa leeyahay okay interna dheh okay marka waxaa la rabaa inuu naga reebo okay maxaa u jeedaa markaan uu ka reeb waaya maxaa kaloo noo dhiman aan ku dari karnaa rename aan sameyn kartaa okay magaca hadda soo saas maaha rename aa dhehe 2 ka dhig okay group 2 oo kale ama numberka kan maadaama uu kan 2 ka dhiga halkan le rename leedahay okay waa kaas magaci hore ka qaatay okay explode aa dhigi kartaa explode an group ay la mid tahay saaxiibayaal intaas fahma explode hadaa dhahdo waxay la mid tahay an group oo kale explode aan leeyahay okay aan leeyahay okay meeshiiba wuu ka baxay yani hadda inuu group noqdo iska dhaafe group manager-kii ayuu ka baxay okay midda kale laba shay aan kugu baraarujinaa midda kale group cusubna halkan waa ka sameyn kartaa waxaa sameynay magac aa sameynay number 2 new group ayaa leedahay objectiveska group lagaaga dhigaayo tusaale ahaan kuwana group ahayn mugta kuwana maanta ka dhigaa enter dheh okay group 2 marka ayaga waa maanta okay waxaa laga rabaa laba shay marka inaad aad iska ilaaliso meeshan selectable waa inay kugu doorantaa macnaha haddii kale groupka aa samaysa lama dooran karo in wax laga bedelo iskaba dhaafi unnamed ha isku dooranin oo tusaale ahaan hadda fiiri hadda kan oo kale okay waxaan sameynaynaa kan oo kale hadda group ka dhigana u fiirso okay marka waxaan sameynaynaa G aan taabanaynaa group aan leenahay objectives kana dooranaynaa meesha magaca waxba ma gelinaa description kana waxba ma gelinaa u fiirso inta la marka muxuu dhahay ungrouped unnamed group has been created okay wax magaca mala marka hadhow adi marka waxa dib kugu noqonayso meeshan inaad ka soo saarto wareer noqonay ma helaysid okay ilaa hadda wana ku jiro okay so marka group manager-ka imaaw waxa sameysaa adiga 2 u bixi new dheh mid cusub rabaa objectives-kan ii door okay enter dheh okay marka okay sii dheh waa ujeedaa group waa ina ila fahantaa rajeynaa saaxiibayaal videogeena halkaas ayaan kusoo gaabinaynaa insha Allah lagjarka xigo ayaa inoo balana insha Allah